wax ka ogow aflaamta Karishma Kapoor iska diiday in ay jisho. Soo dhawow daawade mar kale, waa anigoo ah Axmed Deeq Xasan. halkan aad naga dawanayso waa Deeqsame. nala joog ilaa iyo dhammaadka muuqaalkan. mahadsanid. Jilayaasha iska diiday sheekooyin loo bandhigay kadibna noqday kuwa soo xareeyo lacago fara badan Bollywood ahaan way fara badan yihiin, waxaana ka mid ah Karishma Kapoor. Haddaba waa kuwee aflaamta ay Karishma Kapoor loo bandhigay ee ay ku gacan sayrtay isla markaana noqday filimo guulaystay? Waxaa ka mid ah Barsaat. Filimkan oo marka hore daaragtar ka ahaa nin la yidhaahdo Shekhar, waxaa jilaa ka ahayd dhanka dumarka Karishma Kapoor balse isaga tagtay mashruuca Hilda. Filimkan sababo aan la ogeyn kadib Shekhar ayaa laga wareejiyey daaragtarnimada waxaana loo dhiibay Raj Kumar Satoshi oo markaa Twinkle Khanna ku beddelay doorka Karishma Kapoor. Ishqi. Filimkan jacaylka ah ee Ishqi kaasoo lagu tiriyo aflaamta jacaylka ee guulaha waaweyn gaaray, waxaa marka hore dalabad ka lahayd Karishma Kapoor oo la rabay in ay jisho doorka Juhi Chawla balse iska diiday. Judy oo ah filim ay ku kulmeen rugcadayaal waaweyn ee xagga Bollywoodka ayaa la sheegay in uu ka mid yahay mashruuca ay sida cad isaga diiday Karishma Kapoor kadib ayaa booskeeda lagu beddelay Urmila. Koji Hotahay. Doorka Rani ee filimkan waxaa iska soo diiday dhowr atariisho oo ka tirsan Bollywoodka, waxaana ka mid ahayd Karishma Kapoor. Yeh Raaste Hayn Biyaarke. Mashruuca jilidda filimkan xagga dumarka waxaa marka hore ogolaatay Karishma Kapoor balse kadib daaragtarka u sheegtay in ay mashquul tahay oo aysan jili karin, waxaana lagu beddelay Preity Zinta. Asoka. Shahrukhan oo jilaaga filimkan ah wuxuu rabay in Aishwarya ay isla jilaan laakiin soo saarayaasha ayaa ka diiday oo yiri Karishma Kapoor ayaa kaga haboon. hase ahaatee Karishma Kapoor ayaa iyadana iska diiday sidaasina loogu beddelay walasheed Kareena Kapoor. Haddii aad ka hesho muuqaaladeena fadlan nagu dhiirigeli legtaada channelkeenana ku soo biir siina gudbi muuqaalkan si aan u helno saaxiibo adoo kale ah. waadna ku mahadsan tahay tixgelintada.